الله waxay naga maqan ayagaas aanu hoos joogno meeshan joognaa waa Hariir Madoobe maantay waa difaaci Hariir Madoobe kii Musugeela noo dhiman kii Bulacla noo dhiman kii wax noo dhiman xaw gadiid iyo maxaan ku raahdaa mabaxa noo dhiman intaas waa ku wareegaynaa dhamaantood rugtan ku sameeynaa intuu isoo wacay aniga Shariifa oo habartaana waa gal adooga adiga ku dhalana waa gal abkowgana waa gal inuu gaal yahay oo diinta islaamka lu kulahay dad muslim oo qarni ka qarni duugan oo waa gaala leh ma sa gudkii uga daba galo ogaad diyaar baan u nahay inaan qaadano kaalinta ummadda Soomaaliyeed ay ka qaadanaydo nimankaas khawaarijta diyaar baan u nahay ciidanku waa u diyaar garoobay deegaanada oo dhan kormeelaan ku soo marnay meeshii noogu dambeeyay waa Hariir Madoobe oo maanta taagannahay waxaan ku soo dhaweynayaa oo aad iyo aad ugu hambaleynayaa inaan annaguna u diyaarnahay feeskii labaad ay ku maxaan ku raadaan madaxweynaha Soomaaliya iyo gobernatooraha gobolka ay ballan qaadeen inaan diyaar u nahay Allah waxay naga maqan ayagaas aanu hoos joogno meeshan joognaa waa Hariir Madoobe maantay waa difaaci Hariir Madoobe kii Musugeela noo dhiman kii Bulacla noo dhiman kii wax noo dhiman xaw gadiid iyo maxaan ku raahdaa mabaxa noo dhiman intaas waa ku wareegaynaa dhamaantood rugtan ku sameeynaa isla usbuucan gudahooda meel walba anaga inaan howlgelino oo diyaarinaa isku daynaa waxay hub iyo saanad iyo saad iyo shidaal ay leeyihiin waxaan rabnaa siday gobernatooraha gobolka oo u sheegay inaan waxa alla wixii inaan ayaga ka helaan rabnaa maal gaadiid inaan ka helaan rabnaa meeshan taagannahay waa Hariir Madoobe Hariir Madoobe Musugeel waxay soo jiraan 30 kilomitir Bulacla 30 kala u sii jira xawgidii mabax 50 iyo 60 u sii jirtaa waxaan rabnaa gaadiidkii isku gaari lahayo intaas aan isku gaari lahayna waa ka rab ciidankan dib xureynta waxaan rabaa si gaara oo lagu mahad celinaya si gaarana in wax loogu qabto si gaarana ayaga xuquuqdii ayagu ay leeyihiin ay helaan xuquuqdii lagu lahayna laga helo ilaa dalkoodii iyo dadkoodii difaacayna ayagu toodii diyaar leeyihiin tay lahaayeen inay ka helaan rabnaa haday maamul goboleed tahay haday dawladda federaalka tahay xuquuqday lahaayeen inay helaan waa uga fadhinaa salaam gaadiid malahan gaadiidkood waa wax taas oo dhan baabuur shicibana soo gidaashnay ayagu gaadiid malahan annagu gaadiidan ugu nimaadna malihin waa dad dhamaantood iska daba lugaynaan qoryahana waa qoryahay geeloodii kala baxay ciidan dawladda 10 nin oo dawladda oo mushaar xuquuq dawladda qaadata ciidankaas degmadaas ilaaliyaha kuma jiraan waxaan doonaynaa siday degmooyinka kala ciidanka jooga in degmadaas ay hesho warabna xuquuqda aan helayno madaxweynayaasha aan ka codsanayno waxa kamid ciidamadaasi siday degmooyinka kala u helaan inaan u helno intaas aan codsanaynaa isku keenay galabta oo isugu keenay deegaanka Hariir Madoobe shabaabna cunug 3 bilood dhalan oo dili neef xayawaana oo wax dambiyo leeyahay la arago xalaala oo bilaaway intuu biraysto walba intuu qaata ma qalano ma karsan gaalaale asaguna waa gaalow inuu gaal yahay oo kristaan ka sii hoos yahay intaas hortidii cadeynay annagu haddaan nahay reer Hiiraan wadanka Hiiraan waa ka xur Hiiraan wax meelay uga jiraan ma jirto galgaduuday ku jiraan walaalahayna ku fadhiyaan waana ka daba tageynaa waana ka bixinaynaa si annaga culaabtaynu ku hayeen ku hayaan waana walaalahayna ku hayaan inaan ka qaadno oon ka daba tagno oon ayaga la kaashano in diyaar u hanaa waa cadow Soomaaliyeed waa cadow Ilaahi waa cadowgii kutubka been ku sheegi ma shalay iga dhiga daraad ciidankii anu aan xukumayay waa ka inta fadhiya nin walba uu sheego in shabaab ay soo wacay aan ila mid ku jiriyaa intuu isoo wacay aniga Shariifa oo habartaana waa gal adooga adiga ku dhalana waa gal abkowgana waa gal inuu gaal yahay oo diinta islaamka lu kulahay dad muslim oo qarni ka qarni duugan oo waa gaala leh ma sa gudkii uga daba galo ogaad dadku cadawgiisa asaas ka bixi kara waa dad firfircoon
waa dad wanaagsan waa dad dantooda og waa dad waxay soo arkeen ka dhiidhiye waay waxaan u sheegaynaa cali jayte odawaay yuusuf raage iyo waxa la halmaana oo la mid ah waxaan u sheegaynaa dad yara ma haydo dad xumana ma haydo dadkana in la daaliyo waa laga fiican yahay war dadka hore u socda u rabaahe dadka wax ku qabta anigu intaasaan leeyahay diyaar baan u nahay inaan qaadanno kaalinta ummadda Soomaaliyeed ay ka qaadanaydo nimankaas khawaarijta diyaar baan u nahay ciidanku waa u diyaar garoobay deegaanada oo dhanna kormeelaan ku soo marnay meeshii noogu dambeeyay waa hariiri madoobe oo maanta taagannahay waa u diyaar garoobay ciidanku intaas markaan ka gudbo waxaan leeyahay gobernatooraha gobolka waxaan u sheegaa inuu Hirshabeelle gaarsiiyo madaxweyne oo gaarsiiyo madaxweynaha Soomaaliya dadka halkaan fadhiya oo dib u xureynta hiiraan degmooyinka ka jooga bari oo shabaab dhulka ka bixiyay ciidan dawladeed maahan waa dadkii macawisleyda ahay waa dadkii xoolihiisa ilaashanay waa dadka maantay lagu faanaa waxaan dareemaynaa dadkaas annaga degmada Muqkuri haddaan nahay degmooyinka in laga reebo ka hirnay qaasatan gobernatooraha gobolka waxaan u sheegaa degmada Muqkuri inuu soo fiiriyo dadkeeda inuu soo fiiriyo